السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا قاهي ليس بقادر أبو كريل أسكولمية كسو دبادة جنال كينا tan walba dadkiisa ayaa dhistaa oo ah qodobka ammaanta ka hadli doono kusoo dhawaada mar kale janaalkeena. waxaan aad ula yaabanahay ummadweynaha caalamkuna la yaaban yahay soomaalida iyo fikirkeeda dalnacaybka ahi fikradahaasi oo keentay dad badan oo ka mid ah dhalantii soomaalidu in ay ku dhammaadaan saxaradaha amaha badaha u dhexeeya liibiya iyo talyaaniga ama masar iyo talyaaniga halka kuwo kalena ay ku beehoofayaan jeelasha caalamka iyagoo u xirxiran eedamo laga yaabo inaysan saxsanayn sida argagixiso burcadbadeed iyo wixii lamid ah halka kuwo kalena ay qaateen ama u dhow yihiin inay iska dhiibaan diimaha kirishtaanka ka fogaanshaha tacaaliinta diinta islaamka iyo tegidii dhaqankii soomaaliyeed haddaba gurashada midhahaasi qaraar waxaa horseed u ah dhalantii ama ummadii soomaaliyeed oo aan daacad u ahayn dhisidda iyo soo celinta jiritaankoodii iyo weliba ku tilmaamidda dhulkoodii hooyo dhul aan lahayn wax faa'iido ah ama dhul ay ka jirto kuna baahsan tahay gaajada walow uu allaah uu siiyey badda ugu dheer qaaradda afrika iyo weliba khayraad oo aan laga isticmaalin xitaa qoyso qiyaasteed haddaba qof kasta oo soomaaliyeed marka laga yimaado dadka iyagu ka soo qaxay saameynta ay saamaysay colaado sokeeye waxay kugu jawaabayaan marka aad weydiiso sababaha ku kalifay dhallinyarada in ay sagootiyaan waddankoodii una arkaan in aysan ku sii noolaan karin sababtu waxay tahay saddexda qodob ee aan soo sheegi doono inaysan waddanka ka jirin haba yaraatee wax fursado shaqo ah oo ay ku mashquulaan dhalintu amaba ka soo saartaan nololmaalmeedkooda laba inaysan heli karin tacliin ama aqoon la tartanta dunida taala saddex inaysan waddanku ku haysan wax tixgelin ah khaasatan meelaha ama jagooyinka ka banaanaada dowladda ama maamul goboleedyada dalka taasi oo ay ku macneeyeen in laga horumarinayo qorba joogta kaasoo noqonaysa dalka dibaddiisa taas oo ku kaliftay inay u kictimaan waddamada reer galbeedka oo weliba ay dhexdooda ku faafto halkudhigyo lagu dhiirgelinayo in ay dhalintu ka baxaan waddankooda sida tahriibka maantu waa qorbajoogta barito haddaba sababahaasi ay dhalintu ugu tagayaan waddankooda ma ku saxsan yihiin fadlan jawaabaha qaybta hoose inoo dhig haddii aad ka heshay muuqaalkeena fadlan laag inoo saar mahadsanid